daawade halkan waa im252 kusoo dhow muuqaal cusub anigoo rajeynaya inaad hore u aragtay waxaan laba muuqaal oo kala duwan kasoo sameeyey taariikhyo iyo dhacdooyin ku saabsan shirkadaha dunida ugu waaweyn sida Samsung iyo Apple. Muuqaalkan waa muuqaal kale oo aan uga hadli rabo mid ka mid ah shirkadaha dunida ugu waaweyn ee dhanka tiknoolajiyadda, dhacdooyin ku saabsan, layaabyo ku saabsan iyo waxyaabo muhiim ah oo raba inaad ka ogaato. dabcan waa shirkadda Microsoft. waa shirkadda soo saarta barnaamijka kombiyuutar ee loogu adeegsiga badan yahay dunida, Windows, iyo barnaamijka kale ee Microsoft Office ee uu isticmaalo qof walba oo maanta kombiyuutar adeegsada. kusoo dhawow dhacdooyin, layaabyo iyo taariikhyo muhiima oo ku saabsan shirkadda Microsoft. anigoo kasoo bilaabaya bilowgii hore ee taariikhda Microsoft, shirkadda Microsoft samaysankeeda waxaa lahaa laba qof. ninka shirkadda Microsoft caanka ku ah ee Bill Gates iyo ninka labaad ee ah Paul Allen. labadooduba marka ay shirkadda samaynayeen arday jaamacadeed ayay ahaayeen. Bill Gates ma uusan dhammaysan jaamacadda oo dhex ayuu kaga tegay. waxa uu usoo wareegay maamulka iyo ka shaqaynta shirkadda Microsoft. aanu imaado halka uu ka yimid magaca shirkadda Microsoft. magaca shirkadda Microsoft waxaa bixiyey ninka labaad ee milkiyadda shirkadda Microsoft leh ee Paul Allen. magacan waxa uu ka keenay ereyga microcomputer oo ah kombiyuutarada yaryar iyo ereyga kale ee ah software oo ah barnaamijyada kombiyuutarka ama barnaamij si guud. labada erey ayuu isku keenay, qayb ayuu kasoo kala qaatay, micro iyo soft ayuu kasoo kala qaatay. laakiin markii ugu horreysay labada erey dhexdooda waxaa ku jiray xariiq. sanadkii 1981 ayaa la dhahaa. xariiqdaas waa laga saaray oo labada erey Microsoft waa la isku dhajiyey. sidaa ayaana shirkadda lagu diiwaan geliyey magac ahaan inay leedahay shirkadda Microsoft oo xariiqda ayaa markaa laga saaray. inkastoo aan kuusoo sheegay in shirkadda Microsoft ay wada lahaayeen Bill Gates iyo Paul Allen, haddana ma ahayn shirkaddii ugu horreysay oo ay labadooda sameeyaan. waxaa uga horreysay shirkadda Microsoft shirkad kale oo loo yaqaano Traf-O-Data. inkastoo shirkaddaas ay fashilantay oo ay noqotay shirkad aan guulaysanin, haddana waxaa la yidhaahdaa labadoodaba waxay ka barteen casharo muhiima oo ku saabsan ganacsiga. taana waxaa la yidhaahdaa waxay keentay in shirkadda Microsoft ay ka dhigaan shirkad guulaysatay. qodobka xiga, maadaama aan kuusoo sheegay in shirkadda Microsoft ay wada lahaayeen keliya laba qof, sanadkii 1986 ayaa dadka. qodobka xiga, inkastoo aan kuusoo sheegay in shirkadda Microsoft ay laba qof lahayd, haddana sanadkii 1986 ayaa loo furay saamiyada dadweynaha. taa macnaheed waxaa loo oggolaaday dadweynaha dunida oo idil inay maalgashan karaan shirkadda Microsoft. waxaa la yidhaahdaa marka qofkii markaa ku darsada shirkadda Microsoft $21 oo keliya, sanadkii 2017 $21kiisaas waxay u noqon lahayd $15,000. haddii aan si kale u idhaahdo, halkii saami ee shirkadda Microsoft marka la bilaabayey waxa uu qiimo ahaan la ekaa $22. isla halkaas saami ayuu qiimihiisa noqday $15,000 sanadkii 2017. ninka caanka ku ah shirkadda Microsoft ee loo yaqaano Bill Gates waxa uu sanado badan ahaa ninka ugu maalqabaysan ama ugu lacagta badan dunida. da'da 31 marka uu jiray waxaa loo aqoonsaday ninka ugu dhalinyarsan ee ugu taajirsan dunida inuu ahaa. ninka loo yaqaano Bill Gates ee ahaa aasaasihii koowaad ee shirkadda Microsoft iyo ninka loo yaqaano Steve Jobs oo ahaa aasaasihii koowaad ee shirkadda Apple, waxaa jirtay mar ay wada shaqeeyeen oo wada shaqayn wanaagsan ay dhex martay. waxay labadoodaba ka wada shaqaynayeen inay soo saaraan barnaamijkii ugu horreeyey ee uu ku shaqayn lahaa kombiyuutarkii ugu horreeyey ee ay soo saarto shirkadda Apple. inkastoo ay meel wanaagsan wada gaarsiiyeen, haddana mar dambe ay ku kala tageen ayaa la yidhaahdaa.
waxaa laga yaabaa inaad qodobkan u aqoonsato qodobka ugu yaabka badan marka qodobada kale loo fiiriyo. Sanadkii 1997 shirkadda Apple ee soo saarta iPhone-nada ee caanka ah waxay ku dhoweyd inay khasaarto. Waxay ku dhoweyd inay shaaciso inay xirmi doonto haddii ay sii shaqayso oo aysan helin maalgelin. Sidaa darteed, shirkadda Microsoft ayaa go'aansatay inay maal gashato shirkadda Apple oo waxay ku bixisay 150 milyan si ay u badbaadiso shirkadda Apple. waxaa la yiraahdaa marka 150 milyan ee ay shirkadda Microsoft gelisay shirkadda Apple waxay ka dhigtay shirkadda Apple mid guuleysata oo aanan xirmin. haddii ay 150 milyan ahaan lahayn waxaa la yiri way xirmi lahayd shirkadda Apple. soo la yaab maaha. waxaa laga yaabaa inaad shirkadda Microsoft ku taqaano inay soo saarto barnaamijyada Windows iyo Microsoft Office oo kaliya. laakiin waxaa jirta shirkadda Microsoft waxay soo saartaa kombiyuutarro waaweyn, laptopyo iyo qalabyo kale oo muhiim ah. waxaa leeyahay in ka badan 100 shirkadood oo kale ayaa hoos timaada shirkadda Microsoft oo dunida daafaheeda oo idilka kala shaqeeya. soo la yaab maaha. inkastoo shirkadda Microsoft lagu bilaabay 2 qof oo kaliya, waxaa la yiraahdaa maanta waxaa u shaqeysa in ka badan 90,000 oo qof. aan ku raaciyo, qof walba oo Microsoft u shaqeeya waxa uu leeyahay naanays gaar ah. waxaa loo yaqaanaa softie. qof kasta oo Microsoft u shaqeeya naanaystaas ayuu leeyahay. taa macnaheedu waxay tahay 90,000 oo softies ayaa u shaqeysa maanta shirkadda Microsoft haddii aysan ka badnaynba. waana ogeyd 2 qof oo kaliya ayaa lagu bilaabay. soo la yaab maaha. waxaa laga yaabaa inaad taqaano xayawaanka loo yaqaano bakaylaha. waxaa la yiraahdaa sanado ka hor meel u dhow xarunta Microsoft ayaa nin waxa uu keenay bakaylayaal badan wuuna ka tegay. bakaylayaashu sidaad ogtahay waxay caan ku yihiin inay dhaqsi tarmaan oo ay wax badanna dhalaan. shirkadda Microsoft maanta waxaa la yiraahdaa haddii aad xaruntooda booqato way adag tahay inaad ka weyso bakaylaha oo meel kasta bakayle ayaa socda. xilliyo dhoweyd shirkadda Microsoft waxay gaartay inay qayladhaan ka bixiso bakaylayaasha tiradooda. inkastoo ay isku dayday inay xakamayso, haddana waxaa la yiraahdaa weli haddii aad shirkadda Microsoft tagto waxaad ku arkaysaa bakaylayaal badan. ugu dambeyntii, anigoo halkan kusoo gabagabeynaya qodobada aan kaaga sheegi lahaa shirkadda Microsoft, bal adiga maxaad ku darsan lahayd? midda kale qaybta hoose ee ugu sheeg qodobkii kuugu la yaabka badnaa ee inta aad la socotay qodobadan. aniga qodobka igu la yaabka badnaa inaan kusoo dhexgeliyay ayaan filayaa muuqaalka. anigoo markale kaaga mahad celinaya waqtiga qiimiga badan aad ku bixisay daawashada muuqaalkan. fadlan qaybta hoose ugu yeer saaxiib aad la jeceshahay in wax badan ka ogaado shirkadda Microsoft. inta laga gaaray muuqaalka xiga baidankii nabadgelyo.